madaxweynaha dalka Turkiga ayaa khudbad dad badan soo jiidatay ka jeediyay kulanka guud ee qaramada midoobay oo kulmiyay madaxda caalamka. Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka ay dawladdiisu kula jirto argagixisada, xaaladda Suuriya, xuduudaha dalkiisa, arrimaha qaxootiga iyo xuquuqda shacabka Falastiin. madaxweyne Erdogan wuxuu ku dheeraaday dulmiga lagu hayo shacabka Falastiin, isagoo khudbad dhiiranaan badani ka muuqatay halkaas ka jeediyay. wufuudda sharafta leh waxaan u sheegayaa in maanta dhulka ay Israa'iil ka haysato Falastiiniyiinta ay yihiin meelaha ay ka jirto cadaalad darrada ugu weyn dunidu. maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidanka Israa'iil ay gabadh Falastiiniyada ku garaaceen waddada. haddii aanay dhacdadani dareenkeena taabanayn, maxaynu ka qabanaynaa halkan? eega maabkan, meeda Israa'iil, mee dhulkeedu? halkan ila eega. Israa'iil intee ayuu ahaa maabkeedu sanadkii 1947, imikase intee ayuu ku fadhiyaa? si gaara u eega inta ay leekayd Israa'iil 1947 iyo 1967, maantana eega badka ay ku fadhido. kaad eegto sanadkii 1947, gebi ahaanba ma jiro wax dhula oo ay lahayd Israa'iil. dhulkana waxa iska lahaa Falastiiniyiinta. eega sanadihii ka dambeeyay, ka soo bilow sanadkii 1967, Israa'iil waxay isku fidinaysay dhulka Falastiin, halka deegaanada Falastiiniyiintuna ay sii yaraanayeen. maanta eega gebi ahaanba ma jiro wax dhula oo u hadhay shacabka Falastiin, waxaana wada qaadatay Israa'iil. hamoodina inay sidaa ku istaagtay. weli Israa'iil waxay rabtaa inay la wareegto inta hadhay. halkay ka dhaceen qaraaradii ay soo saareen golaha ammaanka iyo qaramada midoobay? waa inaynu isweydiinaa, maxay ka shaqaysaa qaramada midoobay haddii aanay fulayn go'aamadeedu? meeday cadaaladii? maamulka Israa'iil ee haatan weli wuxuu sii wadaa inuu weeraro islamarkaana burburiyo goobaha taariikhiga ah ee magaalada Qudus. xalka keliya ee bannaani waa in la helo dawlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin oo madax bannaan, caasimadna ay u tahay magaalada barakaysan ee Qudus. ma jiro qorshe kale oo cadaalad ku salaysan oon ka ahayni. aan idin weydiiyo, mee yihiin xuduudaha Israa'iil? ma jiraa qof ii sheegi karaa? ma kuwii 1947kiiba? ma kuwii 1967kiiba? mise waxay leedahay xuduudo kale oo inaan aqoonin? hadday xuduudo cayiman leedahay, maxay weli u qabsanaysaa buuraha Golan High iyo deegaanada kale? Turkigu wuxuu ballan qaadayaa inuu isberber taagi doono shacabka Falastiin sidii uu horeba u sameeyay. waa inaynu xal u helnaa dhammaan caqabadaha aynu wajahayno. waxaan idin rajaynayaa cadaalad, nabad, xorriyad, barwaaqo iyo mustaqbal togan dhammaantiin. waxaan rajaynayaa in kulankani uu noqdo kii midho dhala. waad mahadsantihiin. khadar haybasaab TV. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.